aad baan idin salaamayaa subax wacana wanaagsan baa idin leeyahay bulshada quruxda badan iyo shaqaalaha Age Nutrition. Run ahaantii magacayga waxaan hortumay bad ka tirsan Age Nutrition. magacayga waa Amal Cabdullaahi Maxamuud. waxaan ka tirsanahay kumbanigan caalamiga loo yaqaano Age Nutrition. Age Nutrition waxaan kusoo jiray muddo kooban, adigu muddo aan la dhihi karin way dheer tahay, muddo aan la dhihi karin way yar tahay. Age Nutrition waxaan ka bilaabay waxaan soo daayay soo eegaya Age Nutrition waxaan kasoo bilaabay waddanka Kenya, magaalada caasimadiisa Nairobi. run ahaantii sidan maanta Age Nutrition ay tahay may ahayn waayo way cusbay. anigu markaan kumbaniga aan bilaabayay meel lahayn xarun ama xafiis aan markaa aan ka howlgalno. hadda sida maanta idinka xaflad baa hoteelka laydii keenay, laakiin aniga shaqa ahaan ayay hoteelka ku shaqayn jiray oo maalintiina laga qaadi jiray lacag inteena aan ku shaqaynayno ama goobta aan dadkii ku casuumanayno ama hawlahayga aan ku qabsanayno waxaan bixin jirnay lacag sidan hawlahayga aan ku qabsano. laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaa haysataan xafiis ama waxaa haysataan xarun friya oo aad ku shaqaysan kartid oo wax lacag lagu weydiinaynin oo aad noloshaada aad ku maareyn kartid. maantii Age Nutrition waa kumbani caalamiga oo adduunka meel walba ka dhisan. sidoo kale inaga waxaan naqaanaa shaqo shaqaalanimo oo qofkii ama meherad ah ka shaqeeyo ama xafiis ka shaqeeyo oo tiimku soo galaayo tiimna uu ka baxaayo. laakiin kumbanigeedan ma ahan qofkii tiimka aad doontid ayaad shaqaysan kartaa, adoo gurigaaga jooga ayaad shaqaysan kartaa, xafiiskaaga jooga ayaad shaqaysan kartaa. laguma dhahaayo waqtigaa soo gal waqtigaa ka bax. haddaan aynu ka hadalno taariikhda Age Nutrition, ahaantii inta aan kasoo ku jiray aniga aan kas dhahaa waxaan ka sameeyey dhaqaale maasha Allah aad iyo aad u badan. aanan ka sameyn lahayn haddaan ka shaqeeyo maanta qof shaqaale aan ahay ama qofku boos u yahay. shaqada waa shaqo aan cidno boos ku ahayn, adiga boos aad isu tahay. bishii ama maalintii in allaale inta adiga aad jeceshahay aad sameyn kartid. bishan haddaad ku door ku shaqaysid, bisha kale waxaad awood u leedahay inaad 2 kun oo door ku shaqaysid. bisha saddexaad waxaad awood u leedahay inaad 3 kun oo door ku shaqaysid. maantii intiina badan dhalinyaro aad tihiin waxaan jeclayaa inaan aad ka faa'iidaystaan. lamana arag qof kolley dhalinyaro ah oo maanta la dhihi karo qofkan waa dhalinyaro laakiin lacag buu leeyahay. laakiin Age Nutrition hadda maanta waxaa nagula sugan dad lagu dhahaayo qofkan waa taajir isagoo dhalinyaro ah. da-dii lagu talagalay inuu maanta inagu aan u naqaano qofkaas inuu taajir ku noqdo aan isagoo gaadhin, haddana alxamdulilah uu dhaqaale fiican uu ka sameeyey noloshiisana uu ku maareyn karo. waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysataan kumbanigan caalamiga. haddana maasha Allah inabiin waddankeennii adoo gurigaaga jooga, adoo waddankaaga hooyo jooga, adoo waddankana u dhoofin aad ka shaqaysan kartid, noloshaada aad ku maareyn kartid, faamligaaga iyo asxaabtaadaba aad ugu tiri kartid, noloshaada aakhira iyo adduunyana aad wax uga qabsan kartid. maanta intaas kusoo koobayaa aad baa mahadsantihiin.